السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالقات بان دي السلام يدلهان تيبا ميل كسوءات شوكتان حبين وناكسن ونعيم طريق وإذن كل حبين وناكسن وقتي وهايدين وعناضو ميل كسوءات شوكتان قف كسته إن شاء الله إلهي وحوش عليها السيو ونديسو دعينيا ومضى الصومالي وحاوي دسك أدونك أبو وناكسن لكن سي حدين شيء naagtii doonaysa inay guri ku jirto oo loo soo adeego naagtii doonaysa inay horta gamba telefoon saaran naagtii doonaysa inay guri ku jirto oo loo soo adeego ha iska guursato Yamani si aanay u dhaliilin nimanka Soomaaliyiinta Yamani ha iska guursato because of Yamanigu wax kasta uu ku soo iibinay guriga ma ka soo baxaysid mukhabiyad bad noqonaysa aniguna Yaman dambe aan wax ka sheegay ma jirto because of dhaliila xaqooda iga yimid waxay wada nicmo maxaa wax nooga sheegtaa maana nabad gelis imsaan ku dhigay ninka Soomaaliyeed dili jiray waxba maana dili jiray bay yiraahdeen waxaan siin jirnay biyaha waxaan siin jirnay caanaha waxaan siin jirnay markii wadankayga joogeen biyahan siin jirnay caanahan siin jirnay maxaa dhahdaaye qanaanka markay marmarayaan sida dawarsada ayaanu siin jirnay waxooga cunto u soo tuuri jir hey waa sida saas igu yiri waan qoslo wallaah waan qoslo Soomaalida wax baaday baa loo yaqaan dawarsada gowdhaha waxaan kale idin sheegaya anigu ayaan dhow Soomaaliya faariheeda waan ka baxaya ma fahamteen ayaan dhow Soomaali afaariheeda waan ka baxaya oo ayaa ku biiraya ma taqaan Arab baan ku biiraya anigu Arab baan ku biiraya ma fahamteen waxaan iga sheekeynaya Imaaraat afaaraha yaalay horta Imaaraat nicmo u tahriibtay mise way u dhooftay yaa wax tahriibay meedin la yak waligay meel lagu rafaadayo iyo meel lagu tahriibayo meel lagu balanbalayo midna ma arkin waxaan soo tusay jawaaskayga aan ku dhoofay waxaan soo tusay daaqadayda aan ku dhoofay because waxa dadanta waxa oran kartaa inaan marka 24 hour arabtu ka sheekeynaysa arabta dadanta u taariiftay rafaad badan bay soo marka taa bedelkeeda waa inaan in soo tusaday hawiyadii idin soo tusaa in alaykum asalaam baasaboorki inta waa inaan soo tusaa maxaa loo qasiyaa coffee baan hayaa horta waa kaasa anigu waliga ma sahriin meel lagu tahriibayo lagu balanbalayana ma arkin ma fahamteen waa aragtaan baan maleynaya nicmo tiri taas ku dhooftay markaan soo noqdayna sanad baa wax harsanaa markaan mid wadanka because 3 sano ay ahayd waxa wax harsanaa si fiican u arka waxa iigu qoran Nasra Cabdi Xakiin ayaa iigu qoran magacayga saxda waa Naciima laakiin magaca iigu qoran waa Nasra Cabdi Xakiin Naciima Cabdi Xakiin baan ii leeyahay because magacayga qof kale ku joogo wada aragteen baan maleynay ma fahamteen horta kaasaan ku dhoofay anigu ma taqaana yaa dhoofiyay ma taqaana hooyadii bay dhoofisay ma taqaana lacagta iga bixiyay $5,000 baa la iga bixiyay ma fahamteen wata Imaaraat afaarihi yaala afaara yar maaha hablu way ku balanbalayaan aniga islaam baa shaqo geysay mushrifad bay dalad bay mushrifad iga dhigtay ilaahay oo islaanta cadaabta ka hay ilaahay oo maamada adduunka dhibaataha tusi ilaahay waxa jeceshahay oo dhan horteeda keen yaa rabbi u naxariiso yaa rabbi jina firdawsi ka waraab because saantaasi way isaaciday shaqo fiican bay geysay reer galka ayad bay hay والله ويساعد إلهي هكو ساعده لكن سخلت بان سمية أروح ما تقانا خلت كسمية مركان صوت تجي waxay igu tiri eeday aakhiro kuma saamxin
haddaad tagtid inagoo is arkin annagoo iska soo dhoofay because waan yara mashquulsanaa waan iska soo dhoofay markaas waan isku ciilkaambiyaa haddaad dhegaysanaysid fadwaa la odhan jiray fadwaay haddaad dhegaysanaysid eedooy ilaahay jannadii ha ku geeyo aadna waan kuu jecelahay markastana xaadir baad igu tahay because of maxaa tahay eedo wanaagsan baad tahay gabadh wanaagsan baad tahay hooyo wanaagsan baad tahay maamo wanaagsan baad tahay habriir wanaagsan baad tahay ayeeyo wanaagsan baad tahay haa eedo wanaagsan baad tahay kaasa islaanta aad baan u jecelahay yaa kale igu soo dhaweeyey mataqaanaa yaa kale igu soo dhaweeyey imaaraat waxa igu soo dhaweysay cayni muxiyadiin waan kala lunnay inantaasi waxay ahayd inan reer muqdisho aadna waan u jeclaa runtii laakiin waanu isweynay aad baan uga naxay runtii guri baan wada geli jirnay markii dambe way naga guurtay waxay u guurtay Dubai annaguna Abu Dhabi baan joognay ayaantii aan soo dhoofi doono ayaa waxaa la sheegay inantii sharcigiidana laga kansalay aad baan runtii uga naxay wallaahi meesha igo'od malaymaysan ayadoo naga inba sharcigeedii la kansalay ayna muxiyadiin waxay ahayd reer muqdisho lambarkeedana ma haynin kii imaaraatna de muqdisho kama dhacayo kii kalena hooyadeed ba soo gargaraaci jirto dee ismaan lahayn marmar bay xataa telefoonkayga kasoo garaaci jirtay base anigu ismaan lahayn dee saasaa isku waayeysaan horta inantii halkaasaan isku weynay inantii reer muqdisho halkaasaan isku weynay يلا waad fahanteen baan u malaynayaa marka waxaan u sheegayaa dadka imaaraat ku sii ordaya horta imaaraat khayr ma yaalo laakiin imaaraat waxa yaala khayr darro imaaraat waxa yaala balaayo imaaraat aad baan u naceebahay alla imaaraat nibciya wallaahi imaaraat aad baan u naceebahay way aanu naceebahay mataqaana waa meel baasoo Soomaalida lagu baabasado meel Soomaalida lagu baabasado weeyaan qofka imaaraat u socdo imaaraat hay isku tagin lacagtaada hay iska khasaareen because imaaraat ay ma laha anigu hadaa tala iga maqlaysaan qof kasto Soomaaliya way dhageysanaya waxaan leeyahay wadan Carbeed hay isku tagin wadan gaala hadaa doonaysa tagday wadan gaalada waa dhaanta wadan gaala waa tagi kartaa laakiin wadan hay isku tagin wadan hay isku tagin Arab oo dhan hay isku tagin anu haddaan noolaado anigu leerkaasaaban yaaban maxaa ku marmaray haddaan noolaado ilaahay idaayo dib waa u dambaysa dhul Carbeed ilaahaygu ma oga waa nacabahay wallaahi alcadiim waa nacabahay dhul Carbeed waa nacabahay ma taqaana ninka la yiraahdo magaciisa ma aqaan xataa كسعودية هايستا waxaan Donald Trump wuxuu yiraahdo joog ma yiraahdo dawladaha muslimka oo dhan sagaa loo soo maraa markaasuu yiraahdaa isoo raacday ila waxaan ahay madaxweynaheennii 25 dawladood ana madaxweyne u ahay kaas waa kaas Falastiin bas loo diliyaa kama hadli karayo because uu baqayaa madfac buu ka baqayna dug lagu soo siiyo كاسة
dadka Soomaaliyeed waa kaasa anigu idin sheegay qof kasta doonaya inuu dhoofo carab u dhoofo waxaad ogaataa inaad ku balanbalaysid carabta waxaad ogaataa inaad lacagtaad ka khasaarayso waxaad ogaataa inaad ku qiimo dhacayso because of dadka Soomaaliyiinta aad bay u yeesaan waxay yiraahdeen dadka Soomaaliyiintu waa dad khayr bay haysan jireen bay Soomaaliyiintu khayr bay haysan jireen oo khayrkii bay iska baabasheen khayrkii markay iska baabasheen ilaah baa saa u qalay marka qof kasta oo doonaya sharaftiisa qof kasta oo doonaya bini'aadantinimadiisa imaaraad ha isku tagi laakiin xataa gaalada dhaanta Yurub baa dhaanta America dhaanta America dhaanta Yurub baa dhaanta marka yaana la isku tagin kul carbeed 25 dawladood way carabtu dawlad inuu ka mid nahay 24 dawladood kale yaa la isku tagay lana ay ma lahaday anigu ma kala jeceliba wallahi ma kala jeclaano laakiin waxaan nii sheegayaa carabta yaa ugu wanaagsan wallahi ana idin sheegay carab waxa ugu wanaagsan waa ka baasaboor Soomaaliga kaasan ku dhaf halkan ka soo qaatay ma taqaanaa gaalkacayo ka soo qaatay wuu dhacay imka waxaan ii sheegayaa carab yaa ugu wanaagsan carab waxa ugu wanaagsan shaamiyiinta yaa ugu muxtaramsan shaamiyiinta adduunka carabta dad oo yaa ugu fariisan shaamiyiinta yaa ugu xoogan shaamiyiinta shaamigu wax kasta isaga qabsanaay dharkiisa isaga meeranaay cuntadiisa isaga karsanaay qadada isaga karinaay weelkaas isaga xalnaay weelkiis asaga xalnay wax walba asaga qabsanaya because of wadad fariidiina maaha balaayada iskala haysta ee Sacuudiga maaha Imaaraadka tu kalena waan nii sheegaya dumarka reer Imaaraad waa inay maalinba nooc ahaataan waa inay habeenba nooc ahaataan haday timo halka ka xidhnaayeen habeen dambana waa in halka ka xidhanyihiin habeenka kale haday halka ka xidhnaayeen habeenka dambana waa in halka ka xidhnaadaan haday halka ka xidhnaayeen habeenka kale halka waa in ka xidhnaadaan عشان ليش حويا هدي معلم أنا نوع هاي هبين بأنا نوع هاي لما قبيه ولا فرية فهذا حل رب معلم قارد معلم بالنوع تاعي قارد معلم بالنوع على رب سو معلم ندير أحرمي هلو ماها نوع ونسكتها ما قد واحد نيش يجي تقول في الصومالية ذو دين ما خير قوي هستان الحمد لله ترى هذا because of وحاسة كالصعدة إمارات dhaqankooda waa nooca haday nooc ay noqon weydo gabadhu waxa lagu ornay dawad weynaatay maadaama nooc noqon weydo waad weynaatay marka lagu kala kaxeeday meesha naabtiyay wasida waxa ka socda shaamiyiintan soo noqonaya shaamiyiintu dadka adduunka ugu muxtaramsan waxbay ixtiraamaan inaba uma dhaw carabtan kale dadarta carab shaamiyiin ka qaado سوريين دورسني سوان عرقني إمارات لكن ظروف بقى كلفتي ودنكودي بقى باباي ودنكودي بقى رقمدي يمن دورسني سوي جرتي يمن دتك قميسني جواز قادتي وجرتي واحد استوي جرا لكن هذا صومالي هاي اسكت الإمارات اسكت العرب because عاد بيقول نعيبي صومالي ده عاد بيقول نعيبي دتك من مدو عاد بيقول نعيبي دتك من مدو Soomaaliyeed qurux badan xitaa haday arkaan wallahi billahi tala ma quura waxa ku oranayaan yaa tahay seed Soomaaliyeed ku noqotay laana meelan ka wada shaqayn jirnay seed Soomaaliyeed ku noqotay ay oranayaan yani Soomaali wax wada madmadow wax wada jaajuura wax nooc wax dhugdhugsan wax soo yaqaan ana inta soo meel sheegay barnaamijkan inta soo ku kooban yahay like ta saara oo share gareeya
sidaa ay nabadgeliyo.